Grace Sembène waxa ay dhalatay 17 cisho kadib geeridii aabaheed, waana haweeneyda kaliya ee laba wadan ka soo noqotay marwada koowaad ee madaxweynaha ama xaaska koowaad ee madaxweynaha. Grace Sembène waa qofka ugu yar qoys ka kooban 6 caruur. Waxa ay ku dhalatay gobolka Gaza ee dalkii la oran jiray Portuguese East Africa, kaas oo casrigan loo yaqaano Mozambique. Waxay ka mid ahayd ardaydii ka faa'iideystay nidaamka horumarinta iskuulada ka hor inta aanay deeq waxbarasho ka helin jaamacadda Lisbon ee wadanka Portugal. Waxay sidoo kale wax ku soo baratay Jarmalka inta aanay ku lug yeelan dhaqdhaqaaqyadii xornimo-doonka. Waxay ku hadashaa luqadaha Faransiiska, Isbaanishka, Talyaaniga, Boortaqiiska, Ingiriiska iyo sidoo kale luqadeeda rasmiga ah ee Shangaan. Grace Sembène waxay dib ugu soo laabatay dalkeeda 1973 iyadoo ku biirtay xisbigii xoreynta Mozambique ee la oran jiray Frelimo. Sidoo kale waxay noqotay macallimad iskool. Markii ay Mozambique xornimada qaadatay 1975, Sembène waxaa loo magacaabay wasiirka waxbarashada iyo dhaqanka, waxaana isla sanadkaas guursatay madaxweynihii ugu horeeyay ee Mozambique, Samora Machel. Taas waxay keentay inuu isbedel ku dhaco magaceeda labaad, waxaana Grace Sembène loo bedelay Grace Machel oo ah sida hadda dadka badanaa ay u yaqaanaan. Waxayna isku dhaleen 2 caruur ah oo la kala oran jiray Josina iyo Melengani. Madaxweyne Samora Machel waxa uu ku dhintay shil diyaaradeed 1986. Markaa wixii ka dambeeyay, Grace Machel waxay ku biirtay shaqaalaha qaramada midoobay, gaar ahaan qaybta daryeelka iyo quudinta carruurta. 18 July 1998, xaflad ka dhacday magaalada Johannesburg ayay Grace Machel waxay rikoor uga dhigtay adduunka markii ay la aqal gashay madaxweynaha xilligaas ee Koonfur Galbeed Nelson Mandela. Habeenkaas waxay sidoo kale ku aadaneyd xilli uu Nelson Mandela u dabaaldegayay dhalashadiisii 80aad. Mandela oo Koonfur Afrika xukumayay 1994 ilaa 1999 ayaa dhintay 5 Diseembar sanadkii 2013. Grace Sembène ama sida hadda loo yaqaan Grace Machel waa haweeneyda kaliya ee dunida ka sameysay rikoor ah inay 2 madaxweyne la jiifato oo 2 wadan kala xukumayay ama marwada koowaad ee 2 wadan.